aad waa mahadsantahay saxaafadda halkan maanta waxaynu maraynaa kormeer wafdiga madaxweynaha kusmaha madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin guddi madaxweyne ku-xigeenku shalay u qabtay xaaladda degdega ee ka dhalatay daadadkii ka soo rogmaday roobabkii badnaa ee maalmihii la soo dhaafay ka da'ay deegaanada Puntland hadda waxaanu kormeer lagu tagay wadada isku xidha Garowe iyo Laascaano wadadaas oo meelo badan oo kamid ah ay daadadku saameyn ku waxyeeleeyeen in la soo eego haatan sidaad arkaysaan ilaa laba meelood aynu aragnay oo wadadu geesaha ay ka duntay una baahan si degdeg ah in wax looga qabto si aysan isku sii raacin tii xagga ahayd kormeerka shalay madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisa ay ku tageen dhinaca Midigar wali way xiran tahay waana kala go'an tahay biyihii iyo daadadka ayaa socda insha Allah waxaan rajaynaynaa halkaan markaan ka noqono ayadana inaan dib kormeer dambe ugu tagno si aan u fiirino xaaladda dawladduna waxay go'aansatay sida ugu dhaqsaha badan markii biyahaasi istaagaan haddii lahayd in wadada la furo oo la isku xiro si socodkii si degdeg ah loogu soo celiyo inta laga gaarayo dhulku inuu qalalo oo wadada la leexiyo si dib marka wadooyinka loogu dhiso go'ay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa isaguna halkaasi ka hadlay noocyada kala duwan ay kormeer ku maraysay meelihii daadadku ay waxyeeleeyeen iyo marka shalay waxaad la socotaan inaanu jiray buundada Midigar iyo xaggaas waa soo saaminay waxaanu ku talagalay in maxay tahay si emergency wax looga qabto nasiib daro biyihii baa nagu soo biyo cusub oo soconaya ayaa marka dambaysa imanaya waxaan rajaynaynaa mar laale marka biyahaasi ay naga yaraadaan ama macquul noqoto wax ka qabashadeedu excuse me inaanu la bilaabo xaggan iyo galbeedka ayaanu saakana soo aadnay ayaamaanba waxaanu ku urgalaynay meel laale meeshii waxyeelo ay gaadhay oo aanu gaari karro inaanu tagno oo qiimayno oo u kuurgallo ololahaasna waa wadaynaa insha Allah ilaa inta aanu maxay tahay guul ka gaadhayno waxaanu isku wadaynaa khasaarayaashii dadka iyo dunyada iyo kuwa kan maxay tahay deegaanka ama wadooyinka intaba at least ala aqal inaanu helo information-kooda oo urursanaanu helo wixii anaga tamarteedaan wax ka qaban karana si degdeg ah oo emergency aan wax uga qabano wixii kalena inaanu adduun weynaha iyo hay'adaha iyo cidii kale wax naga qamsa iyo bulshada reer Puntland runtii iyada isku Puntland baanu aad iyo aad ugu kalsoonahay bulshadeeda iyada isku taasta midaaweyn isku tashi bay ku dhiseen barigii hore waxaan rajaynaynaa kuwana haatan khasaaraha wadooyinku uu ka yaryahay sidii hore oo inay sidii caadadu ahaan jirtay inay aan loo baahan meelo kale yeelkadeeda kolley assessment-ka waa la samaynayaa aad iyo aad baad